Soomaaliya Ismaaciil Diyaashe muddooyinka ugu dambeeyay runtii waxaan ka dhex arkay goobaha dhalinyarada isboortiga Soomaalidu ay iskugu yimaadaan ilaa haatan maxaa ku suurtagalay in aad hesho laacibiin Soomaali ah horta Saalimo waa runtaada muddooyinka dambe horta waxaan xoogga saaray ama si buuxda leeyahay dhex arkay sida dhalinyarada dhexdooda runtii maadaama dhalinyarada ay igu dhiirigeliyeen in macnaha aan ayaga aan u noqdo si shakhsi role model oo kale ah maadaama qofba qof uu ku daydaa macnaha anigana runtii waxaan markaas isku dayaa in macnaha aan gaarno natiijo maadaama aan leenahay dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo kooxo waaweyn oo macnaha wadamada horumaray meel kasta ama Mareykanka ama Yurub ama Australia maadaama aan leenahay in koox weyn ay la joogaan experience leeyihiin in laga faa'iideysto maadaama aysan ciyaartooyda suurtagelaynin wadanka maanta ay joogaan janiska aad u yariya in wadamada waaweyn oo ciyaaraan wadan ka dhisan macnaha Saalim hadaa fiiriso macnaha 10 sano ugu dambeeyay waxa macquul ah hal cunug inuu madax soo taago junior macnaha kooxaha waaweyn inuu ka soo muuqdo oo kadib macnaha hoos soo dhaco la sii waayabo macnaha hadana anka Soomaali ah markaan ahne waxa jiro oo macnaha qof madax soo taago xayeysiin loo sameeyo cunugii macnaha hadana qofkii ma sii soconayo marka taas waxaan isku dayay in macnaha ka badan la sameeyo ama ka duwan la sameeyo in ciyaartooydii aan ka dhaadhiciyo hadiisan macnaha maanta qofka playerska ah haduusan matalaynin national team macnaha ma aha maanta Soomaali in la yiraahdo Soomaali aad magaciisa ku dhumay kuleysay dhalinyarada qaar ay aaminsan yihiin laakiin magaciisa kuma dhumay labo shay ay meesha ka soo baxay in wadankii oo macnaha quality oo ku soo kordhiyo maadaama koox weyn oo la joogo professional ah dhalinyaradii oo training kala sameeyay inuu macnaha jaanis fiican siiyo oo asagna fursad u noqoto in macnaha kalaawada ay arkaan ninkan uu yahay macnaha nin baxayo oo aaday national team laakiin waxaan ku weydiinayaa maadaama aad adiga Talyaaniga ay joogtay siday kugu suurta gashay in xulka qaranka aad markaas u safato wallahi macnaha Saalim nasiib way macnaha aniga nasiibka soo raadsaday ugu dhahay aniga macnaha isma faarinay waxay igu suurta gashay oo macnaha si oo lama filaan ciyaar oo ana u tagay magaaladan Firenze markaasna ay ku sugnaayeen sibo alla wanaxsi gudoomiye hore Mugambe meesha joogay marna waxaan ku wada kulanay ayagoo u imaaday FIFA Abdiqani iyo alla wanaxsi Mugambe iyo groupka markaas xiriirka waday hadana waxaan ku wada kulanay Switzerland markaasna waxa ahay macnaha qof yar markaas soo baxay madax soo taagay oo qof kasta macnaha u muuqday ay arkayeen oo macnaha gudoomiye lagu dhiirigeliyay inay la soo xiriiraan kadib ay xoog igu saareen laakiin muddooyinka dambe hadda fiiriso dhalinyar badan ayaan leenahay laakiin waxa meeshii ka maqan connection كمان اسكو connection مينس xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya ee dhalinyarada kulli hadda saa ogtahay baani macnaha bilooyin ka horta gudoomiyaha waa wada kulanay oo macnaha xiriirkan in la xoojiyo dhalinyaradii la tuso in macnaha meeshan uu jiro kubadda cad uu jiro in laga dhaadhiciyo in la fahansiyo in xiriirka uu leeyahay macnaha meel laga xiriiro in xiriirka uu diyaar u yahay ilbaawada ay furan yihiin inuu oo imaado Soomaaliya rabo in macnaha uu matalo qarankiisa dad laakiin aaminsan